السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيرت شرفت لك وسدوا هذا يوتيوب بيج كان عمر شق يا فلان قينت كلن كوين ما أنت قلبت كل أحمر كوحة ويست هام يا جلسي كلن قاس أو حير كور كسر دماغي جوري كوحة ويست هام هالكاس وجوش يكون عليه كوحة جلسي سدح جول يا حوا جلسي حوا كوحة ويست هام عكت أي مرسي حوا كلن كان قلبت حسنا الرجوين كخف جلسي وابل قلقي دون أسنا ويست هام مدام عيارته فرق بدن سمرك سوقاتي لكن وين قوي صدح يبر يا لو ديبي waa kulankii labaad ee Chelsea ee clean sheet ku raynayso marka daafacan waxa ay Chelsea way soo noqonaysaa way soo dhismaysaa goolal inay dhaliyaan ay bilaabeen goolka maadaama macnaha ishay way hore waxa gool la'aan dhib ka haystay daafacoodana waxa waa iska furnaayo haday 5 gool dhaliyaan xitaa 5 kale laga dhalinayo waa ogid marka Chelsea waxa leeyahay si fiican ay ku bilaabatay hadaa asla fiirino kulanka sida caadiga uu ku bilowday labada koox isku mid ah ayaan almost wax misdaamin xagga weerarka iyo xagga difaaca waxa bismadaamin oo shoodka hadii la fiiriyo West Ham badnaa 7 shood ee West Ham riday Chelsea meesha 5 shood ka riday laakiin goolashooda waxa way dhashadeen oo 5 shood rideen afar kamid ah waxa on target oo dalka West Ham shoodkeeda macna badan ay iska khasaarinaysa marka waxa way Chelsea saan waxay ku leedahay 10 dhibcood hadda kaalinta labaad ku jirta inkastoo ku meel gaar ay ku tahay oo kooxaha kala dhan aysan dheerin oo ayada le macnaha kulankii ayada isbuucan kooxda ugu horeysay ee dhashayta 10 dhibcood ay leedahay kaalinta labaad ku jirtaa galabtana waa la arki doonaa ciyaaraha kale too dhaco iyo natiijooyinka oo ka imaaday waxa dhiili doona Liverpool kooxaha weyn waxa dhiili doona Liverpool iyo Man United dhiili doona ayagana marka goolka koowaad buu dhashadaan nimankan ciyaarta markay 4 daqiiqo socotay Sancho assist sameeyay ninkan Sancho ka xasiin ah United waa idin ka nasto oo taagan marka waxa way ciyaartu 4 daqiiqo marayso Nicholas Jackson gool u dhaliyay assist waxa uu sameeyay Jadon Sancho ayadoo sidaas kooxda West Ham waxa laga diiday mar penalty laga diiday Porteriga isheeg daafaca kooxda Chelsea ayaa wuxuu u jiiday isheeg wuxuu isku damcnaa Fofana wuxuu sameeyay asigoo la dhaafay oo laga gudbay wuxuu qabtay gacanta too qabto soo jiiday dhacay ninkan markuu dhacayna waxa waa arbitra muusa dhigin balay u dhahay waxa hadii oo penalty dhigi lahay ciyaarta waxa waa natiijada san waa iska bedelay laakiin muusan dhigin marka waxa la leeyahay VAR ku dhashay natiijada ciyaarta VAR ku dhashay kadib Chelsea gool labaad ee shadana Nicholas Jackson ayaa u dhaliyay mar labaad Caicedo ayaa assist u sameeyay Caicedo naftirkiisa waxa waa soo laabanaya yani formkiisa hadda waa run qadka dhaxaysa u dheelay iyo waaga hore soo ay wax badan farqi hadda u dhaxeeyo sidoo kale to goolkii saddexaad waxa uu dhaliyay Cole Palmer oo Jackson ayaa assist ka sameeyay kadibna nimankan gadaal laga xirtay ayagana waxay sameeyeen Chelsea ciyaartoy badan ay bedel ku bixiyeen ciyaarta 3 iyo Everton macnaha Cambidi hal Cambi 45 daqiiqo kale to waa Ever 45 daqiiqo dambo marka Chelsea waa kacsantaa haba top hada top 4 waxa u dagaalamaya xagga iska dhigto Liverpool iyo Arsenal iyo Man City xagga iska dhig saddexdan magac kale iska dhigo top 4 waxa kaalinta afraad waxa ku dagaalami doona United Tottenham Chelsea Newcastle Aston Villa waxaas dhan kaalinta afraad ay u dagaalamayaan booska afraad u dagaalamayaan shanaad waxa matala marka Chelsea waxay leedahay anaga dagaalka dhinaca ugu jirnaa ma qowsanayno ma saadaysan ku socdaan waxa waaye natiijo fiican position fiican ay ka imaan doonaan kooxda Man United iyo xiriir ku noqon doonta iyo Tottenham iyo xiriir ku noqon doonta waa la arki doonaa ayagana waxa waaye saasay tahay hadda maadaama kulankii koowaad ayaga ay dheeleen oo tahay galabta hadduu ilaahay yira waxa dheeli doono Liverpool oo 12 saac soo gali doonto xeer kadib 10 daqiiqo kadib soo gali doonto sidoo kale waxay u bixi doontaa Liverpool kooxda Bournemouth Anfield ay ku dheeli doonaan sidoo kale cawada hal saac iyo bar waxa dheeli doona Crystal Palace iyo kooxda Man United kulankaas oo isla fiirsan doono sidoo kale 12 saac oo xeer kadib waxa soo gali doona Tottenham iyo Brentford marka waxa hadda maanta waxa isdheeynay Chelsea waa lagu dhigi doonaa Tottenham waa lagu dhigi doonaa Liverpool way badane United ayadana way badanaysaa marka Chelsea way badasay adiga maxay kula tahay ciyaarta Liverpool iyo Brentford inay ku dhamaan iyo Bournemouth inay ku dhamaan doonto Liverpool inay kulankaas inay badanayso iska cadda saas ayaa la saadaalina ugu badan tahay Tottenham laakiin aan u baqaa Tottenham waxa Brentford u buuxisa Brentford waa taqaana nimankaas waxa Man City isaga dhigayaan United ay ka badinayaan cid ka baqayaan male Tottenham u fiirso galabta waxa ku dhici doona laakiin Man United Crystal Palace u bixisa Crystal Palace 4 kulan la soo dheeray hal kulan Braga gashay
laba kulan waa laga soo badiyey marka waxaa waaye kuwaas waa dumanayna insha allah hadii la yidhaha waa isla falanqayn doonaa kulmadaas wixii dhiiriyo kasoo baxo iyo natiijooyinka waxay ku dhamaadaan intaas yaa kusoo gabagabeynaa videogeena kooxda Chelsea wadada guusha ay cagta saarteen ma ku socon doontaa mise waxaa waaye Chelsea aan naqin inay noqon doontaa hal kulan badanaysa hal kulan laga badanayo maxay diirata comment-ka iyo in wala soo wadaaga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh